waa dhacdo ku cusub gobolka Togdheer hore gudaha Burco waxa uga shaqeyn jiray gaadiidka tigta kuwaas oo leh dalawar ama kaxeeye tigtani way ka duwan tahay tigii hore Burco ka shaqeyn jiray waana tig aanu kaxaynayn wax dalawar ah rakaabkuna way fuushan yihiin haddana iyada ayaa iswadaysa waa tii ugu horeysay ee Burco soo gaadha sida uu noo sheegay Faysal Cali Ismaaciil oo ah dalawarka tigtani waxa uu sheegay in ay tahay mid cusub oo ay soo saartay dhawaan shirkad cusub oo sameysay gaadiidkani waxaana uu sheegay Faysal Cali Ismaaciil in farsamada tigtani iminka bilaa dalawarkaahi ay ka timi isaga kadib markii wax ka bedel ku sameeyay sida uu noo sheegay Faysal waxaad warbixin naga siistaa tigtani iminka dhinaceena maraysa waa tig iyadu iswado ma laha wax dalawar ah maxaad ku samaysay tigtani waxaan ku sameynay waxaan ka bedelay wax ka mid ayada ordayn badan baan ku wadnay oo shirkad cusub oo iminka magaalada waxa ka joogtaa iyada mid kale kaliya maalin la wada tore ay mashiinkeeda meel ka mid ah ayaan ka bedelay anagu waxaan arkay inay iswad karayso waan eegay way socotay way iswadayba kawle sida darteed wali iyada ka soo wada taas oo artaa iyada soconaysa inama wado waan eegay iminka qalabkeedii wuxuudiba iminka loo keenaya waan shirkad cusub shirkadii waxaan leenahay aad iyo aad marka tigtani wax dalawar ma laha صح يمكن اسقط صح لكن تكلم ايش كنت شايسون بقبنسا ها مeel kale ma qabanayso wadiga isku artay in soo dad ka war ma ka rakaabka wado kale aad iyo aad wallahi Soomaaliyeed ugu shaqeystaa صح Soomaaliyeed ugu shaqeystaa waxaan ku dhaw waa ana kaxaya ana wada markasta ana wata صح waana shirkad cusub oo hambaliyada shirkad cusub ay meesha keentay waxaan rajeynay qaar kale loo keento oo noocaas kala صح waana naafto tani ma badrool sidoo naafto marka awal marka wax lagu helo صح haye ka waan u hambaliyay shirkad cusub keentay hindra magaceeda baasha kala hindra marka adigu wax ka bedel kuma sameyn laakiin shirkadda saas ay ku soo ha marka hore ana eegay mishiinkeeda waa mishiin weyn laba waayiro ka wankay ka tuugaabana marka ana kala bedelay wankii baan xagga in ka safgaray kadib wankii xagga bartan ka galiyay iyada soo waysa faantay صح waxaan waa siiq ana ka bedelay siiqi xagga dabaayaan wankii soo galiyano marka iyada soo waysa waa mid ku cusub gobolka Togdheer iyo guud ahaanba Somaliland waana markii ugu horeysay ee la arko tig bilaa dalawar ah oo iyadu iska xaynaysa Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi Horyaal TV Burco